بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودyaal kusoo dhawaada channelka Naafic Tech. Haddii ilaahay ka dhigo casharkan waxaan ku qaadan doonaa sida loogu shubo computerkaaga Windows-ka ah software-ka loo yaqaano VMware Workstation. VMware Workstation wuxuu kuu saamaxayaa inaad computerkaaga ama desktop ha ahaado ama laptop ha ahaadee inaad ku shubi kartid computer kale isaga ku dhex shubi kartid. مثلا waxaa laga yaabaa inaad taasoo ku dhici kartaa sidaas waxaad haysataa مثلا desktop Windows 10 ah sidaydoo kale desktop-kaaga aad aragtaan ka bacdina waxaad doonaysaa inaad baratid operating system kale ah Linux oo kale tusaale ka soo qaad ama Windows 7 ama Windows 8 wuxuu doonaha noqdo operating system kaas halkii aad laptop kale oo Linux ku jiro aad soo qaadan lahayd ama aad laptop kale oo aad ku shubatay Windows 8 ama Windows nooc kale aad soo qaadan lahayd ayaa VMware Workstation wuxuu ku ogolaanayaa inaad desktop-ka ama operating system-ka aad computerkaaga ku dhex shubtid isagoo markaa sidii application oo kale ah oo virtual desktop wax la yiraahdo. sidaa darteed adigoo computerkaaga iska isticmaalaya ayaad marba u kala wareegi kartaa ama aad u bedelan kartaa computerkaaga kale aad ku dhex shubatay computerkaagii. tusaale iminka desktop-kayga haddaan idin tuso computerkayga properties haddaan tago on soo qaado properties-ka halkan waxaad ka aragtaa inaan Windows 10 isticmaalayo oo ah waliba Windows 10 Enterprise. RAM-ka igu jira computerkaygu waa 32 gig. marka 32 gig mar kaliya suurtagal ma ahayn wada isticmaalo anigoo application fara badan wada furan mooyaane xitaa haddaan application fara badan furana lagama yaabo inaan wada dhameeyo 32 gig. sidaa darteed waxaan samayn karaa 32 gig ayaan waxoogaa ka soo goosan karaa مثلا 4 gig oo kale 4 gig of RAM ayaan ka soo goosan karaa hard disk laftarkiisana qayb baan goosan karaa. processor-kayga oo halkan ku aragtaan oo ah Intel i7 4790 CPU-gaygana qayb ayaan ka soo qaadan karaa. markaan intaas u wada keeno waxaan ka samaysanayaa virtual machine wax la yiraahdo oo ah computerkayga ku dhex jira. yaana waxba hadalkeedu ku daalin aynu guda galnay insha Allah sida VMware Workstation loogu shubo Windows 10. haddaad Windows 7 haystid waad ku shubi kartaa, haddaad Windows 8 haystid waad ku shubi kartaa. tusaalahan baad raacaysaa haddii ay ka dhigo aan iska xiro screen-kan kana aan xiro desktop-ka ayaan dhigay VMware Workstation. marka anigu version-kan haystaa waxa weeyaan version 15. haddii ay ka dhigo link ayaan soo dhigi doonaa halka lagala soo baxayo software-kan halkaad ka soo qaadan kartid si aad ugu tababaratid adiga laftarkaagu insha Allah aad ma taqaana bal aad u tijaabisid. haddaan furo application-ka waa runtii arrin aad u sahlan. waxa ugu horeeya soo boodaya waa user access control. waa computerkayga oo igula meed doonaysaa inaad software-kan furtid haa baan leeyahay. waa kan version 15 VMware Workstation Pro. waxyar kadib waa dilaa ka dhigo isfuraya markuu isfuro insha Allah dhowr marxaladood baynu maraynaa wax la yiraahdo wizard ama steps ayaan raacaynaa tallaabooyin baynu qaadaynaa si aanu haddii ay ka dhigaan ugu shubno computerkeena. waxaan jeclahay runtii inaan videogan aanan xoog u faahfaahin aan ku soo koobo on sida loogu shubayo computerkaaga hadhowna haddii ay ka dhigo casharada ku xiga aynu ka dhigano sidii aad operating system-ka مثلا aad ugu shubi lahayd. مثلا waxaad doonaysaa inaad adigoo Windows-kaaga haysta Linux sidaan sheegay aad ku shubtid hadhow operating system-ka sida loogu shubayna insha Allah waynu guda geli doonaa oo iyada quleedu iska arrinyadoona sahlan laakiin bal aynu halkan aynu arrinkan dhamayno. waa kan wizard-kiis furay next baan leeyahay agreement-ka ama shuruudaha isticmaalka aad aqbalaysaa accept markaad tiraahid next baad leedahay. halkan enhanced keyboard driver runtii waxaad u baahan tahay maaha adigoo dee ma taqaanaa isticmaalaya keyboard ka duwan keyboardada caadiga mooyahay. marka tan waynu iska dhaafaynaa next baan leeyahay. halka lagu install garaynayo wuxuu yiri C drive-ka ayaan ku shubayaa program file 686 C drive-keena ayuu ku shubayaa sidaas inuu deenina maadaama Windows-keenu halkan ku duuban yahay. check for updates on startup anigu waan iska deynaya waxba updates ma baahni. customer experience-kana waan ka qaaday labadaadaba ma baahnin waan iska deynaa insha Allah waxba update garan mayno. version-keena 15 ko aanu ku ekaano baa baynu ugu filan uma baahnayno kasii gudubno version 16 iyo wixii kasii sareeyay gudubno. waayahay desktop shortcut ii samee start menu-gana oo ah haddaan start-ka halkan taabto halkanna ii soo dhig start menu-gayga waa tahay next baan leeyahay.
dib igu noqo start menuga uma baahnaan waha next kabacdina install ayaad leedahay waata wuu ku shubayaa markuu dhameeyo wuxuu ku oranayaa license-kii ama key-gii baan filaya inuu na weydiin doono registration-ka haddii ilaa ka dhigo registration-ka inuu gelin doonaa kabacdina waanu furaynaa application-ka si aan u eegno bal si yaroo fududoo degdega sida virtual machine-ka loo sameeyo inagoo aan xoog usii gudagelin aanu waxoogaa yarun yaro taataaban aan yaro guud marayno un insha allah waa tahay waxaan filaya inuu dhameeyey finish markaa laba option buu ina siiyey inaanu finish nidhaahno oo aynu iska xidhno dabeedna uu applicationku su kan furo laakiin uu muddo kooban ina siiyo maadaama aynan licen gelin ama aynan licen gelino licen baan anigu oranayaa licen baan hayaa markaa licenkaas ayaan ku shubayaa enter baan leeyahay dabeedna finish ayaan leeyahay haddii alla ka dhigo markaa wuu applicationku saas ayuu ku ansaxay oo licenkiisii baynu gelinay haddaba bal aynu furno update buu ina weydiinaya update-ka dooni mayno waxaan leenahay dismiss halkan anigu dhowr computer baan ku shubtay already aan hore ugu sii shubtay saad arkaysaan DC1 waxa weeyaan waa Windows Server 2016 domain controller aan ku shubtay ESXi oo Linux ah haddaan tusaale idinka siiya isaga laftarkiisa haddaan shido iminka saad arkaysaan Windows baan isticmaalayaa laakiin Windows-kayga gudihiisaba waxaan ku shubtay Linux operating system-ka haddaan bal isagana aan idin yara shido insha allah si aad u aragtaan waa kan is-shidaya boot buu igu yidhi waan daarayaa marka ESXi waxa weeyaan waa Linux operating system lagu isticmaalo mashiinada seefarada ah si loogu shubo virtual machine fara badan matalan haddaad shirkad u shaqeynayso sidoo kale ay u baahan yihiin 100 ama 200 oo server halkaad 200 oo server soo iibsan lahayd ayaad halkaas server baad waxaad ku shubaysaa ESXi hostkan ama ESXi operating systemkan kabacdina isaga ayaa kuu saamaxaya inaad virtual machine ama server fara badan aad gudihiisa ku shubtid waxba ku dheeraan mayna insha allah maadaama casharkeenu ku kooban yahay sida loogu shubo VMware workstation computerkaaga haddaad Apple MacBook haysatid ama Mac Pro ama whatever Apple operating system waxaa jira VMware workstation fusion mid la yidhahdo VMware fusion oo isagana waa noocan aynu isticmaalayna VMware workstation 15 kan oo kale oo laakiin Apple-ka loogu talagalay isagana cashar gaar ah ayaan ka sameeyey oo aad isagana insha allah aad ka arki doontaan marka waad aragtaan operating system-kaygii ESXi 6.7 ee VMware-ka ahaa oo ku saabsan operating system-ka loo yaqaano Linux ayaan ku shubtay Windows baan isticmaalaya laakiin maxay saamaxday inaan maxay ahayday isticmaalo Linux operating system aan isticmaalo ayay saamaxday marka haddii ilaahay ka dhigo casharka dambe ee kan inoogu xiga ayaa waxaynu ku eegi doonaa haddaba sida loo sameeyo virtual machine bal sida loogu shubo adigu waxaa laga yaabaa halkan markaad eegtid my computerka ku taalo inaanad VMware kuguma jiraan maadaama aad waxba ku shubin anigu horan u samaystay VMware virtual machine u jeedaa cafwan marka virtual machine-adeedii baa ii soo baxay adiga halkan waxba kuma soo baxayaan haddii ilaahay ka dhigo casharada dambe ayaynu ku eegi doonaa sida adna aad bal virtual machine aad ugu shuban lahayd ama Linux ha noqdeen ama Windows ha noqdeen waxay doonaanba ha noqdeen insha allah casharada dambe ku eegi doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin fadlan subscribe-ka taabta like-ana taabta share gareeya ilaahay khayradan siiyo aad baad u salaamantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh